madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaaye ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wadada isku xidhi doonta magaalada Ceerigaab ee xarunta gobolka Sanaag iyo waliba magaalada Burco. Dhismaha wadada ee xukuumadda Soomaaliland si rasmi ah u bilowday ayaa waxa maanta uu madaxweynaha Soomaaliland markuu dhagax dhigay dhismaha wadadaasi ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada guddida horumarinta gobolka Togdheer iyo waliba dadweynaha u tiro badan. Ugu horeyn buu waxa ka hadlay madashaasi lagu dhagax dhigay wadada isku xidhi doonta magaalooyinka Ceerigaab iyo Burco. Gudoomiyaha guddida horumarinta gobolka Togdheer Maxamuud Aadan Dheri wuxuuna sheegay in loo baahan yahay sidii la isaga kaashan lahaa dhismaha wadadana uu sheegay inay tahay mid muhiim u ah guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland. madaxweyne Axmedow maanta ilaahay kugu shimay inaad adigu dhagaxii ugu horeeyay ilaa Ingiriiska ilaa maanta aad dhigto waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay cimrigaagana dheereeyo dalkeenana inoo xasiliyo. halkan imika aynu joognaa waddankeennii Soomaaliland intiisii badnayd weli waxay naga xigtaa bari wadadana wadadii dhagaxa la dhigi lahaa ee ugu qaalisanaa ay tahay yihiin waxaan kale oo u baaqayaa ummadda reer Soomaaliland u dhalatay meel ay joogaanba tanu tii loo kala hadhi jiray ma aha waa tii laynagu yiqiinay waa waxyaabihii aynu ku guulaysanay diire maray maanta waanu wax kala dhaahdo ma garanayo ducun baa maanta inoo wada eeg Soomaaliland hadayna ducayno eeg magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ee aan ku dhashay xudduntaydu taalo Sanaag ha loo gurmado dariiqa aynu arkayno ee maanta madaxweynuhu dhigaya dhagaxa aynu ka soo furo gambada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in saaka la dhagax dhigo madaxweynuhu noo dhagax dhigo wadadii Ceerigaabo iyo Togdheer isku xidhaysay waa mashruuc runtii aad iyo aad u ballaaran oo loo karo waa mashruuc wadanka ka fulo kii ugu cuslaa waxa lagu qiyaasaa 370 kilomitir ma aha wax maalin iyo laba iyo sanad iyo 3 toona ku dhamaanaya waa mashruuc runtii u baahan in loo dabaradeego runtii waxa inoo fiican ma waxa leenahay dhamaantiin insha Allah taala ka qayb qaata qurba jooga gaar ahaan madaxweyne waxaan jecelahay qurba jooga inaan ugu baaqo inay ka qayb qaataan oo hal mitir iyo laba iyo 3 way bixin karayaan. farxad aad iyo aad u weyn bay tahay in maanta dhagax dhigo wadadan muhiimka ah ee dalka isku xidhaysa oo dalka qaybtiisii badneed oo aad xagga u jirta oo wadooyinku ka xun yihiin oo dal qiibo iyo qaayl ah in maanta intii kale ay kala go'naato oo ay sidii wadanka looga faa'iideyn lahaa aan uga faa'iideysan aad iyo aad baan uga xunnahay. maanta waxa farxad inoo wada kulligeen inaynu bilownay inaynu arrintaa baabino oo wax ka bedelo oo dalku isku xidhmo oo bari wadadaasi tagto oo Ceerigaabo iyo deegaankeeda ay gaadho oo nibcooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ay dalku dhan soo wada gaadho ummadooda gaadho oo la isu socon karo oo la isu tegi karo. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigan ballaaran uu hogaaminaya ayaa sidoo kale dhagax dhigay saldhig booliis oo laga dhisay xaafadda City Plaza iyo 3 kiiloomitir oo lagu daray dhabaha garoonka ay diyaaraduhu ka aadaan ee magaalada Burco iyo waliba dhismo cusub oo loo dhisay ciidanka militariga gobolka Togdheer. waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television caalamiga Royal Burco.